السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعن ونكسن صاحبدا قيمها بدن aanu hawada ku saaxibno meel walba dunida daafeeda adiga daawanaysaan ku soo dhawaada janaalkayga mar walba iyo goor walba iyo meel walba aad dunida kaga nooshihiinba waa codsi fadlan hadii aad nagu cusub tahay marka kugu horeysay ay tahay janaalka subscribe saar oo nagu soo biir si aad ula socotid mar walba barnaamijyadeeda sidoo kale tana hadii aad nagu cusbeen fadlan muuqaalka like saar fikirkaaga commentiga noogu reeb lana sii wadaag saaxiibadaada intaas marka aan kaga gudbo oo inta badan oraahyada youtuberska inta youtube-ka businesskooda ay tahay ama barnaamijyada ku sameeyay ay sameeyso markaan kaga gudbo qodobka ama ahamiyada koobaad aan u soo galay barnaamijka waxay tahay waxaan rabaa hal qodob oo aad moodid in laga wada jiifo siyaasi aqoonyahan dhalinyaro macallimiin professoro dhaqaatiir culimo laga wada jiifo aad moodid bal inaan ka yara dhawaajiyo ayaan rabaa waxaan arkayay social media markaan imaado guriga imaado social media fiir bal waxaan fiirinayaa reaction-ka ama sida dadka ay uga hadlayaan waxa ka dhacaya gado waxaan fiiriyay oo aan eegay beejajka dawladda federaalka Soomaaliya ee mas'uulka ka ah dadka shacabka dawladda Soomaaliya oo muqdisho soo gaarsiisay caruur Kenya ku xasuuqday oo qaarkood waalidkood ay duqeynta ku dhinteen dawladda gurmadka waa ku mahadsanta what is this seriously maxay tahay waxaan dad ba adiga mas'uul ka tahay dawladda ay mas'uul ka tahay la xasuuqay dadka ay dhaawac soo qaatay dawladda waa ku maadsan tahay tani ma aha mas'uuliyadda dawladda loo idmaday waa midka koobaad dawladdu waa inay reaction fal ay ka bixisaa haddii se ka bixi karina ay at least dhawaqa iyo qeeladeeda ay gaarsiisaa caalamka waa fikirka aniga aan qabo waxaan arkayay sidoo kale مسؤولين محن كره شرية أو هدلو يراشد معن مرحلة أنا اللي جرا دقيمة اللي جرا دت مساكين الماء يهوي ينبع لتقيني أو كي تقيني سا جودك كم قابضة معلمها حرية دا أو ما أنت شر جرائد كو قبصة أما كو كل مي السجو يمد سكجا ورستان هؤلاء هرمانتا yo sidii maalmaha xuriyada this is not the time of xuriyo as I believe waxa loo baahan yahay inaan ka falcelino oo ka hadalno waxa ka dhacay gado xuriyada ka la samxayta ilmihii iyo waxa la xasuuqiya iyo caruurtii ayaa la xasuuqiya dalkaagi iyo dadkaagi ayaa lagu soo xadgudbaya xuriyada ka hadlaysa something already done at ka hadlaysa present ya wax dib jooga hadda dib jooga in laga hadlo oo laga dhiidhiyo ay tahay waxyaabaha kale aan la yaabay waxa kamid waxaad maqlaysaa James Iswan iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaari Garowe ma sha Allah Garowe quruxda madaxtooyada cusub muuqaalka waa wax lagu farxo laakiin waxa kaga sii farxi lahaa James Iswan markuu Garowe gaaray Puntland meeshaas dhismaas quruxda badan lagu soo dhaweeyay falcelinta ugu horeyso James Iswan inay gaarsiiso Puntland sidii ugu xun yihiin sida loo xasuuqiyo caruurta ilmaha laakiin unfortunately markaad fiirsid warbixinta iyo waxyaabihii laga hadlay kuma jirto mana la isku soo qaadin waxyaabaha ugu cajiibka badan oo aan la yaabay social media labadan bari ka mid ah no reaction siyaasiyiin معارض مشرح مدحوينه أقوياهن علماء everybody واحد مدة إن يريهين أقل ما يوجد ضد يرأو كف العليا ولا لها يعرورتا قد لو حسوقيو is a part of Somalia وقب Somalia كمدة haddii aad ras caseer joogtid iyo haddii aad ras kabooni joogtid waa ina isku si aan u dareena qof walba oo Soomaaliya qof ajnabi ah wax u geysto qaasatan tan waa xadgudub xuduudeed xadgudub bini'aadanimo xadgudub dhan walba ah waay waxaan rabaa marka inaan xoojiyo
master qaadiid ayaa waxaan ku arkay social media asagoo muujinayo xoogaa yar oo dhiignimo Soomaalnimo ku jirto aad baan u soo dhaweynayaa fikirkaas waxaan rabaa inaan ku xoojiyo adduunka hadda la joogo social media aad bay u xoog badan tahay inaan ku xoojiyo war haddii aanan wax kale awoodi karin cala al-aqal muujiya oo ka xumaada oo ka dhiidhiya wadaalika adcafu al-iimaan ka dhiidhiya xumaanta Soomaalida ku dhaqan dalka Ingiriiska duqeynta Kenya ay gado u geysatay mudaharaadka oo ninkaas iyo asxaabta kale ee social media ay abaabulayaan ee London ka dhacaya fadlan ha laga qayb galo safaaradooda ha lagu mudaharaado ha laga dhiidhiyo ilmaha xasuuqeen sawiradooda ha la qaato dhiigooda ha la tuso waalidkii la laayay ha la tuso xadgudubka geographically and mentally and physically ay torture ku wada Kenya ha la muujiyo in laga hortago waadna mahadsantaan leeyahay qadiid waxaan arkay boardka in la qaban doono talaado 15 June 10 am London time reer London iyo waliba caalamka meel walba Soomaalida ay joogto Europe iyo Africa waan qabaa in loo istaago oo laga dhiidhiyo laga mudaharaado barnaamijkayga caawa aan u soo galay mowduucaas ayuu quseeyay meel walba aad joogtaan saaxiibayaal waan idin wada salaamayaa intaan waqti kale aan kulmi doonan waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh